kuna wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka xulashada wararka ee xilligan qodobada ku daawo doontaan waxa kamid ah maamulka Puntland ayaa qorshe halis la damacsan maamulka galmudug ee dariska ay yihiin maxkamadda raafaanka gobolka Banaadir ayaa 15 kun ku bedelatay 80 nin kufs u haysta oo ku xirnaa xabsi ku yaala Muqdisho dawladda Kenya ayaa xilligan qasiya foodo ka dhaxabuuraysa dawladda federaalka Soomaaliya oo khilaaf baan uu kala dhaxeeyo maamulka Somaliland waxay ka hadashay imaanshaha Kenya ku tagay magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland xukuumadda Soomaaliya waxay qaaday talaabooyin rabaaxa ku ah dawladda Kenya qodobadaas qodobo kale ayaa ku daawo doontaan warka xilligan ee xulashada warka kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka xulashada oo dhameystiran maamulka Puntland ayaa la sheegay in dhibaato xog leh ay ka dhaxabuuraysa maamulka galmudug oo dariska ay yihiin dhibaatada Puntland ay ku haysta maamulka galmudug ayaa la sheegay inay tahay horin colaadeed iyo sidoo kale iyo iska horkoonid beelaha ku midaysan maamulka galmudug magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa dhawaan shir ku yeeshay madaxweynaha Puntland iyo galmudug kuwaas oo la sheegay in ka wada hadleen sidii la iska kaashan lahaa dagaalka ay kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale horumarka galmudug iyo Puntland maamulka galmudug mas'uuliyiin ka tirsan waxay Puntland ay ku eedeeyeen in ay faragelin xoog leh ay ku hayso arrimaha gudaha ee maamulka galmudug gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Ali Gaclasir oo shir ku qabtay magaalada caasimadda Muqdisho ayaa sheegay in faragelin xoog leh oo maamulka Puntland uu ku hayo maamulka galmudug isla markaasna uu qasi foodo oo ka dhaxabuurayo gudaha maamulka galmudug deegaanadiisa wali uusan sheegin noocay tahay faragelinta Puntland ay ku hayso galmudug ayaa haddana waxa muuqata in la dhaxsanay isfahamkii ugu dambeeyay ay wada gaareen madaxweynaha Puntland iyo galmudug Ali Gaclasir waxa uu sheegay in Puntland ay ka aqbali doonaan dhibaatada iyo foodo ay ka dhaxwadaan deegaanada galmudug wuxuuna sheegay in arintaasi ay kala xisaabtami doonaan in maamulka Puntland ay faragelin ku hayaan siyaasadda gudaha ee maamulka galmudug isla markaana ay ka shaqeynayaan ficilo si kala fogeynaya saamileyda maamulka galmudug in ciddii aan ka shaqeyneynin isu soo dhawaanta reer galmudug aysan ka shaqeynin in ay si kala fogeyso galmudug dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qaaday tilaabooyin rabaaxa ku ah dawladda wadanka Kenya wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku wargelisay hay'adaha UN-ka iyo kuwa deeq-bixiyaasha in ay ka qayb gali doonaan dhammaan seminaarada iyo shirarka iyo tababarada ka dhaca Nairobi waxayna ugu baaqday in shirarkaasi seminaarada lagu qabto gudaha dalka ama lagu bedelo dal kale si wakiilada wasaaradda caafimaadka ugu fudaato dhanka safarka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Kenya ayaa wax xilligan u dhaxeeya khilaaf ba'an kaasoo saameyn ku yeeshay isku socodka dadka iyo safarada ee kala aadi jireen Nairobi iyo Muqdisho dhawaan ayay ahayd markii mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ee dawladda Kenya ka soo celisay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee Nairobi taasoo dawladda Kenya ay sheegtay inaysan xilligan aysan u fududeen dalku galka inay siiso mas'uuliyiin iyo xildhibaano ka tirsan ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Somaliland ayaa ka hadashay inuu Uhuru Kenyatta imaanayo magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir oo loo yaqaan Furatoon ayaa sheegay in aysan jirin wax socdaal ah oo madaxweynaha Uhuru Kenyatta uu ku tagayo magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland toddobaadkan ayaa waxaa la sheegay in Uhuru Kenyatta oo ah madaxweynaha wadanka Kenya uu ku tagayo magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland taasoo haddii uu tago Hargeysa ka dhigan inay maamulka Somaliland u qoonsan yihiin dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale walow Somaliland ay mar hore ay sheegtay in Soomaaliya inteeda kale ay ka go'day kulan wanaagsan daawadayaal wali waxa daawanaysaan warka xulashada warka oo hadana kale mar walba aad daawataan maxkamadda raafaanka ee gobolka Banaadir ayaa 15 kun oo doolar ku bedelatay sideenta nin kufsi geystay oo ku xiran mid ka mid ah xabsida ku yaala magaalada caasimadda Muqdisho oo gacanta ku hayay maxkamadda raafaanka ee gobolka Banaadir ee Muqdisho maxkamadda raafaanka ee gobolka Banaadir ayaa dhawaan waxa lagu eedeeyay $10 in ku bedelatay kiis kufsi ahaa oo go'aan ay ka gaartay maxkamadda gobolka Banaadir falkan oo dhacay bartamaha sanadkii hore ayaa loo geystay gabar ka mid ah qoysaska barakacayaasha ah ee xilligan ku nool duleedka magaalada caasimadda Muqdisho waxaana da'deeda lagu sheegay 14 ilaa 15 sano jir gabadhan oo habeen soo luntay ayaa waxa ka xigay gurigiisana geeyay wiil darawal ka ahaa mid ka mid ah gaadiidka beelka ee magaalada caasimadda Muqdisho ka dhex shaqeeya waxa uu qiraal ku qirtay inuu u galmado si xog leh waxaa lagu xukumay 6 sano oo xarig ah iyo $5 kun oo magdhow ah sida ay go'aamisay maxkamadda raafaanka ee gobolka Banaadir qoyska dhibku ku dhacay ayaa maalmo kadib waxa lagu wargeliyay go'aanka maxkamadda raafaanka ee gobolka Banaadir oo ah in dambi lagu waayay ninkii xukunka kufsiga u qirtay cadeynta loo helay laguna riday waxayna ku noqotay urgutaalo xanuun badan
sidoo kale xulashada warka ayaa ogaatay in lacag qaran ah laga soo aruuriyay qabiilka wiilka kufsiga geystay naarintaasi lagu kala furay waxaa lagu qiyaasaa lacagta lagu baxshay ku dhawaad $15,000 sida ay muujinayaan cadeymahan oo soo gaaray xulashada warka daawadayaal intaas ayuu ku ogyahay warka xilligan ee xulashada warka haddaan ku cusubtahay subscribe si aad saaxiib nala noqoto ama markaas aad u hesho wararka halkan aan soo gelino